الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معنا ardayda aan salaamay. Aad salaam waxaynu ku sii jirnay oo inoo sii socday chapter-keenii lixaad inuu ka soo qaadanay lesson 1 iyo lesson 2 iyo lesson 3 iyo maanta aynu qaadan doono haddii la yiraahdo lesson 4. waxa weeyaan chapter-keenii markaa ahaa transportation, communication and trade. markaa waxaynu maanta markaa qaadanaynaa cashirkeeni markaa ugu dambeeyay chapterka marka saddexdii hore ee lesson ku horeeyay waynu soo qaadanay. markaa sidaa ciwaanka cashir ka muuqatayna hore soo tilmaanay waxaanu nidhi cashir ciwaanka chapterku saddex arrimood oo wada socdo markaa ka wada hadlayay oo muddo saddexdu inay markaa wada xiriir leeyihiin. markaa mar transportation sometimes waxaad arkaysaa iyadoo si gooniya looga hadlo inaga nidhi communication si gooniya looga hadlo trade si gooniya looga hadlo maadaama laakiin ay xiriir leeyihiin saddexdani markaa one chapter baa laga dhigay. markaa kolba mid baynu soo dhamaynay markaa aynu soo qaadanay mar waa inagii si toos uga soo hadalnay transportationkii inay communicationkii ka soo hadalnay haddana kii saddexaad oo maanta aynu kusoo gabagabeynay haddii la yidhaahdo trade-kii ayaynu ka hadlaynaa marka trade-ku muxuu yahay noocyadiisa iyo balsada uu shaqeeyo waxyaalaha ganacsiga saameeya arrimaha noocaas ayaynu ku taataaban doonaa chapterka haddii la yidhaahdo. waxa weeyaan kulley trade markaad maqasho markaa waxaa maskaxda markaa kusoo dhacayo waxa la kala iibsanayo wax la iibinayo markaas kelmadda dee ka muuqata magaceega waa ganacsi. anagii horena maalin horena usoo tilmaamayno marka trade iyo waxa weeyaan business labada kelmadood baa la isku yar inta badan laga moodaa in same yihiin laga dhigaa laakiin waxay way kala duwan yihiin aga marka economics laga hadlayo ama aga dhaqaalaha waxa weeyaan mid baa inaga nidhi mid baa mid kamid ah oo qayb kamid ah ka kale ma aha markaa ka kale markaa mid kamid ah waxaan markaa waxay ku kala duwan yihiin xagga waxa weeyaan business-ka ka weyn trade-ka marka la eego oo waxa weeyaan inaga nidhi trade-ku waa qayb kamid ah business-ka waxa weeyaan trade-ku wax kale ma ganacsigu waxa weeyaan wax la kala waa is a buying and selling of goods and services waa in alaab la iibsado ama adeeg la iibsado taa ayaa waxa la yiraahdaa marka hore sida caadiga ah trade-ku waa saas laakiin business-ku waxa weeyaan marka business la leeyahay waxyaalo activity kala duwan iyo waxyaalo kala duwan marka sameeyo marka lagu leeyahay meher hawshaasi ama qofkaas waxa wada business oo waxa weeyaan meherad weyn buu leeyahay inta badan business waxa lagu aqaanaa inuu marka different operations uu sameeyo marka waxa kamid ah operationada kala gedsanay marka business-ku sameeyo tan waa kamid inuu wax iibiyo waxna soo iibsado inuu buying and selling of goods and services sameeyo soo kale business waxa uu sameyn karaa investment uu sameyn karaa maalgelin uu sameyn karaa sida sheegan soo kale wuxuu sameyn karaa oo kamid ah isna HRM kii isna laga maarmaan oo human resource management kii business-ku soo kale wuxuu sameyn karaa waxa la yiraahdo customer service uu sameyn karaa wuxuu sameyn karaa Allahu musta'an manufacturing waxa uu sameyn karaa oo kale finance waxa kale uu sameyn karaa accounting waxa kale uu sameyn karaa Allahu musta'an waxa kale uu sameyn karaa marketing ama advertising waxa la yiraahdo waxyaalaha dhamma markaa business-ku sameynaya marka trade iyo business marka sabab kala duwan marka business-ka ka weyn trade-ka waynaga nidhi markaa nin qofkaasi waa businessman iyo qofkaasi waa trader way kala duwan markaa qofkaasi waa businessman lagu leeyahay meherad buu qofkaasi haystaa meherada uu haysto waxa lagu aqaanaa inay meheradaas markaa different operation ka kala duwan ay samayso marketing ay samayso waxa weeye purchasing ay samayso buying and selling ana soo sheegnay investment ay samayso waxyaalaha operationada kala gedisan markaa inay samayso ayaa inta badan lagu aqaanaa. way qof marka trader leeyahayna inta badan isagu kaliya wixiisu waa inuu wax iibiyo inuu wax soo iibsado waxna uu iibiyo qofka traderki laakiin qofka businessman-ka meheradiisi marka waxay sameynaysaa different operation ka kala gedisan bay sameynaysaa. marka saadiradeed trade-ku marka waa qayb kamid ah business-ka saa marka imka hore noo soo sheegnay marka aynu sheegno laakiin business-ka ayaa ka weyn trade-ka way business-ka haddaan in yar isna wax ka yar tilmaano isna marka la sheegayo laga hadlayo noocyadiisa marka laga hadlayo waxa weeyaan
dhowr nooc baa loo qaybiyaa iyo marka xagga operationka lagu shaqada waxa uu businessku qabto oo ka shaqeeyo marka lagu base gareeyo dhowr nooc baa loo qaybiyaa marka service waxa jira iminka service business ku adeegun ka ganacsada mees adeeg waxaan la taaban karin wayna hore soo nag waxa jira business la manufacturing business oo waxa weeyaan kambaniyada qaarkood ba waxay soo saaraan product material cusub ay soo iibsadeen dabeedna new product bay ka sameeyaan marka kambaniga operationkiisu nooca uu yahay marka waxa la oranayaa waa manufacturing business baa la oranayaa waa yahay nooca saddexaad isna la tilmaamo waxa la yiraahdaa merchandising business merchandising marka nooc trade ka marka hoos imanayaayo company waxa moodaa magaca kale loo yaqaan weyn kaas marka isagu waa company ama business ku tacalluqa in uu sameeyo wixii uu soo iibsado jumlad ahaan waxa weyn kan inta badan waxa la deals with buying product as wholesale and sell product in retail wuxuu soo iibsadaa baa la yiraahdaa alaabtiisi jumlad la dabeedna wuxuu iibiyaa si tafaariiqla marka kaas waa merchandising business baa marka kaabu soo skalay xataa iminka trade oo sometimes magaca kale iyadoo leeyahay way taas markaas waa marka laga hadlayo businesska lagu kala saaray xagga operationka marka lagu kala saarayo businessyada xagga ownership lahaanshaha iyadna 5 nooc baa la sheegay ilaa 4 nooc baa la sheegay waxa jira sole proprietorship business nooc la yiraahdo waxa jira nooc la yiraahdo corporation business waxa jira nooc la yiraahdo Allahu musta'an partnership business waxa jira ku la yiraahdo LLC business oo loo soo gaabiyay limited liability business ku kale waxa jira corporative la yiraahdo marka waa xagga lahaanshaha mid qof iska leeyahay mid laba qof wax ka badan ay leeyihiin mid meey laba qof iyo wax ka sii badan ay leeyihiin oo 100 qof ilaa 50 qof ay leeyihiin marka halka marka imika waxaan isla garanay in trade iyo business ay marka yarkii la duwan yihiin waa in yaro iska supplementary oo dheeraad ah marka insiinay marka doonayay bal ardayga inuu waxa weeyaan markuu trade uu maqlana waa ganacsi inta badan business-kuna waa ganacsi badan laakiin sidaa bay ku yarkii la duwan inta badan la kala sheegay way aynu ku soo noqono marka shirkeenna ama slide-keena aynu soo noqono trade waynaga nidhi is a basic concept is a basic economic concept involves buying and selling goods from one person or entity to another waxa la yiraahdaa waxa weeyaan waa basic economic concept waa fikir ganacsi dhaqaale asaasiga waxa laga wadaa dhaqaaluhu kulay waa wax la soo saarayo oo laga faa'iideysanayo oo la qaybinayo ay xalada dhaqaalihiisa sida waxa weeyaan resource-ka loo maareynayo ee loo waxa weeyaan loo manage kareynayo marka waa buying and selling of goods from one person to another inuu qof marka wax soo iibsado dabadeedna qofkii kale uu ka iibiyo marka waxa uu sameeyay trade buu sameeyay meeye entity oo company wax soo iibsado oo dabadeedna wax siibiyay iyadna muxuu sameeyay action ka uu sameeyay waa trade buu sameeyay markuu trade uu imanayay ganacsigu imanayay waxa weeyaan buying and selling la sameeyay qofna wuxuu soo iibsanayo oo waxa weeyaan qofkii kale wuxuu ku soo iibsanayo qofkii kale wuxuu iibinayo waxa laga maarmaan marka inay jirteen aynu nidhi waxa la yiraahdo medium of exchange wax labadan qof marka wixii ay ku kala bedelinayaan marka waxa halka waxa laga hadlayaa lacagti baa laga hadlayaa marka waqtiyadii hore laakiin waxa jiri jiray imka waxa laga yaabaa iska jiro waxa la oran jiray barter trade oo taariikh ahaan marka laga sheekeynayo ganacsigu waxyaalaha lagu kala bedelinayo soo maray waxa kamid ahayd waqtiyada qaarkood oo jiri jiray waxa la oran jiray barter trade wuxuu ahaa in alaabaad ku bedelato marka wax ma jirin wax la yiraahdo currency lacag ma jiro ama noqoto warqada ama coin ha noqoto ma jirin imka waxa la sii marayaa waxa weyn credit card waxa la fara badan la sii maray marka waxa la yiraahdaa marka wax inuu jira marka labadii qof wixii ay ku kala bedelinayaan oo qiimo laba marka waa inuu jira marka waxa la yiraahdaa medium of exchange marka waa lacagti marka laakiin waqtiyadii hore ma jiri jirin lacag laakiin waxa jiri jiray wax la oran jiray barter trade oo ganacsigu ganacsiga marka taariikh ahaan la kala saaray waxa la yiraahdaa xilli waxa jirtay la oran jiray barter trade xilligan dambe casriga waxa la yiraahdaa currency trade waxa weeyaan waqtiyadii hore waxa alaabaad ku bedelinayso for example kiish waxa weeyaan milxaad haysataa adamsa kiishan kala doonaysay marka qofka kale waxa laga yaabaa inuu sonkorta haysto kaada inuu u baahan yahay sanadkiisa aad maanta marka labadii shay in baad dhaafsanaysay marka wax currency la ma jirto
marka waa product kale lagu bedelaya ama waa goods kale lagu bedelaya marka meesha maxaa ka maqan there is no wax currency la wax money la ma jirto laakiin casri waqtiyadan dambe de wata lacag baa markaa soo baxdo lacagta markaa lagu kala bedesho marka ganacsiga ma dhacayo labadii qof waxa ma kala iibsanayaan oo kana wixii uu doonayay ma qaadanayo kana wixii kan uu rabay ma siinay hadii uuna jirin wax la markaa media ama fix change oo lacagtii waayahay economics refer to a system or network that allows trade as a market marka waa inaga markaa dhaqaaliyahanadu waxay yiraahdaan ganacsi waxa weeyaan waa waxa keenaya markaa suuq inuu yimaado economics refer to a system or network that allows trade as a market marka trade ki markaa inuu dhaco waxa weeyaan waxa imanaya de isna waxa weeyaan waa systemka markaa suuq baa imanaya de waxa weeyaan trade ki suuq baa imanaya haduu markaa de waxa weeyaan market una jirin de trade ki markaa ma jiro and in other words haddaan si kale u dhigno trade is to willing give things or service and get other things or service in return okay waa qofku wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan in uu qaato qofka kalena qofku wuxuu u baahan yahay inuu siiyo marka meesha maxay maraya transaction waxa la isweydaarsanaya marka waxa la oranayaa ganacsi la oranayaa sida kale marka sometimes waa loo qeexayo loo dhiga waayahay inta markaa hadaan inta ku dhaafno waxaynu eegaynaa bal noocyada markaa bal ganacsiga loo qaybiyo halkan waxaynu ku arkaynaa bal types of trade types of trade waa saddex nooc sometimes waxaad arkaysaa iyadoo markaa laba nooc laga dhigay imika sida halka inoogu taala sawirka inooga muuqata mar waxa inoogu qoran laba nooc inuu yahay marna waxa inoogu qoran inuu saddex nooc yahay laakiin inta badan saddexda nooc baa caana marka noocyada trade ku maxay noqon karaan noocyada ganacsigu maxay noqon karaan waxay noqon karaan kow mid la yiraahdo home trade ama waxa loo yaqaan domestic trade ama waxa loo yaqaan local trade ama waxa la yiraahdo internal trade home trade waxa weyn ganacsiga ka jira wadanka gudihiisa ee wadanka aan dhaafsanin oo xuduudda wadanka aan dhaafsanin ayaa waxa la oranayaa home trade tusaale ganacsiga magaalada ka jira waa home trade marka waxa weeyaan halka uu ganacsigaas markaa ka shaqeeyo halkan wax lagu kala iibsadaa wixii qof loo baahidiisii oo halka kaga gutaa marka ganacsiga noocaas ee waxa weeyaan within the country marka borders ka wadanka aan la dhaafin waxa la yiraahdaa marka local trade waa la yiraahdaa internal trade waa la yiraahdaa domestic trade waa la yiraahdaa home trade waa la yiraahdaa marka ganacsiga noocaas ee waxa la yiraahdaa marka la yiraahdaa ganacsiga gudaha la yiraahdaa inta badan ama ganacsiga wadanka gudihiisa la yiraahdaa waa buying and selling of goods within a country's border waa waxa weeyaan waa in alaabtii lagu kala iibsado qofkii wuxuu u baahnaa iibsado kii kalena de wixii uu baahnaa qofkii ka iibiyo laakiin waa de waa wadankii gudihiisuna laakiin lama dhaafay marka xuduudii wadanka ganacsiga noocaas ayaa marka waxa la yiraahdaa home trade ama domestic trade ama local trade inta saddexda magac marka loo qaan way labo marka ganacsigii guduhu wuxuu noqon wholesale trade ganacsi jumlada iyo retail trade buu kala bixiyaa mid tafaariiq la oo jumlada tafaariiqda waa naqaanayo waxa weeyaan de bakhaarku inta badan waxa la yiraahdaa jumlada waxa weeyaan alaabtii uu soo duuduub uu soo iibsadaa alaabtii fara badan uu soo iibsadaa way dukaanadii waxyaalihii kale small business kiina iyaguna waa retail oo alaabtii intay ka soo iibsadaan bakhaarkii ama store-kii iyaguna dib u sii iibiyaan wax sii saartaan wax ka sii faa'iideen laakiin kan wax isagu soo dejinaya wixii soo qaadanaya waa wholesaler wata laade waa jumlada kan kale isna wixii sii iibinaya si yareynaya waxa weeyaan lacag sii saarnay waa retail marka ganacsiga gudihiisna labadaaba noqon wholesale trade mid wixii iyadiyo baalkii oo money fara badan oo waxa weeyaan alaabtii oo badan uu soo dejisto marka soo iibsado iyo mid ka sii qaata marka loo leeyahay waa jumlada oo marka isna sii yareeyo oo sii kala sasrifa wixii marka labada nooc baan isna sii qaybinayna ganacsiga aynu niri waa kii gudaha ka jiray local trade ka ama home trade ka aynu niri labada marka sii kala qaybinayna waa jumlada iyo tafaariiq marka jumlada iyo tafaariiqna waan kala naqan marka waxa ay jeer tusaale inoogu aday jumladii waa store-kii retailer-kiina waa meel shops-kii iyo waxyaalihii supermarket iyo kuwa kale lamid ah waayahay wholesale trade waxa weeyaan purchasing of goods in a bulk okay purchasing means buying
alaabtii buu qofkii usoo iibsanaya goods waa alaabtii ama badeecadii ama commodity inta baa la dhahdaa ama product ayuu usoo iibsanayna baalki si fara badan oo wixii weyn oo waxa weeyaan badan buu la soo degayaa from producer qofkii alaabta soo saarayay waxa weeyaan manufacturer-kii company-gii soo saarayay product soo sameeyay ayuu ka soo qaadanayaa and selling them to retailers wuxuuna dib uga iibinayaa dadkii jumladayaasha iyaguna waxay sii kala sarifay sii kala yareeynayay ayuu dib uga siibinaya marka ka soo dejinaya wixii isku duduub ku soo dejinaya marka waxa la oranayaa wholesaler ganacsiga marka noocaasa alaabtaasi waxa weeyaan iyadoo fara badan loo keenayna waxa la oranayaa wadankii gudihiisa la keenayo waxa weeyaan internal trade ayaa marka waxa la oranayaa wholesale trade way retail trade iyadoo waqtaas waa ganacsiga isna in wixii la sii yareeyo jumlad ahaan loo siibiyo marka loo siibiyo tafaariiq loo siibiyo tafaariiq marka waxa la sii kala sarifo la siiyo way waa buying goods from wholesaler and selling them to individual consumers marka waa in alaabtii laga soo iibsado qofkii wholesalerkii and selling them dibadna alaabtii loo sii iibiyo productkii iyo goodskii loo sii iibiyo dadkii waxa weeyaan customerkii looga sii iibiyo iyadoo marka wixii la sii yareeynay waxa weeyaan la sii kala dhigay taa marka waxa la yiraahdaa retail trade way consumer means dadkii userskii isticmaalay in marka laga siibiyo labadan kelmadood ba iyaguna isku yar dhow consumer iyo customer ina waa sometimes waxa diir moodayna marna sim laga dhigo laakiin in business context way yar kala duwan consumer waxa la yiraahdaa waa final users of the product waa cid ugu dambaysa ee product isticmaashay waxa weeyaan qaadata waxa la yiraahdaa consumer laakiin customer waxa weeyaan imka laba business oo imka waaweyn laba company waaweyn haddii alaab ay kala iibsadaan ee alaab ay kala qaataan hadii jeer uu ka jiro transaction uu ka jiro labada company waxay isku yihiin customer bay isku yihiin laakiin consumer waxa weeyaan waa qofkii ugu dambeeyay product isticmaalaya ee waxa weeyaan last user of the product baa marka waa qofkii waa individual marka isticmaalay marka daan product uu ku gabagaboonay iyo waxa la yiraahdaa marka consumer marka two business iyagu iskuma aha consumers iskuma aha laakiin customer bay isku yihiin laakiin qofkii iyo maxaan ku raadayay meheradii waxay isku yihiin marka qofkii wuxuu meheradii marka uu yahay markuu wixii ka qaato isticmaalo isagu wuxuu yahay consumer laakiin laba business waxay isku yihiin customer marka sidaa bay yar kala duwan iyagu way kaasi marka waxa weeyaan waxa la yiraahdaa marka nooca ganacsiga noocaas marka waxa la yiraahdaa local trade ama waxa la yiraahdaa internal trade ama waxa la yiraahdaa home trade magacyada kala duwan baa loo qana marka haddaad aragto local trade haddaad aragto domestic trade haddaad aragto internal trade haddaad aragto home trade afarta magac marka buugtu way qoran marka waa maxay dan soo khulaaseen waa ganacsiga marka gudaha wadanka ka jira in xuduudii wadanka la dhaafinay ku kooban wadankii gudihiisa iyo waxa la marka magacyada kala duwan loo qana local trade internal trade magacyada kala duwan loo qana marka inta magac baa la yiraahdaa